geeriyooday mid kalena waa dhaawacmay kadib markii la sheegay inay hooyadood ku gubtay guri ku yaala miyiga gobolka Togdheer gaar ahaan deegaanka kulanti waxaan oo wanaagsan daawadayaasha aad ku qiimaha badan halka naga daawanaysaan warbaahinta wararka fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar calaamada kambalka furasad la socoto fiidiyoda ama wararka cusub aan soo galino sidoo kale fiidiyoga like saar halka naga daawanaysaan sida mar la idin sheegnay warbaahinta wararka dilkan foosho xun ayaa ka dhacay xalay magaaladaasi Burco gobolka Togdheer kadib markii ay hooyo 4 caruur ah ay ku gubtay guri ay ku soo xidhay warka oo faahfaahsan ayaan daawan doonaa intaan daawadayaal waxaan si xushmad leh ka codsanaynaa subscribe inaad noo saartaan maadaama aysan dhib idin ku hayn daawasho wacan geeriyooday mid kalena waa dhaawacmay kadib markii la sheegay inay hooyadood ku gubtay guri ku yaala miyiga gobolka Togdheer gaar ahaan deegaanka Naqdabiijo qaar ka mid ah ehelada iyo dadkii wax ka siday caruurtaasi gubatay oo la hadlay telefishinka Home Cable ayaa u xaqiijiyay gubashada caruurtaasi sidoo kale la ka warbixiyay marxaladdu siday u dhacday aniga Cabdi Maxamuud Yuusuf waxaan ka warramayaa dhacdo ka dhacday oo masiiba hadii la ka dhigo oo ka dhacday Naqdabiijo dhacdadaas oo hadii la ka dhigo 4 caruur oo hooyadood gubtay 4 caruur hadii ka laba way dhimatay oo goobtii ku dhintay way xurunshadeen labada dhaawac baan ku soo qaadnay labadii dhaawac ku soo qaadnayna mid baa imika go'ay hadii la kale kalena dawaasiir iyo saxba kaga jirto waa dhacdo aad u xun oo dhigana xadin leh inna raajicuun caruurta markaa hooyada hadii la kale marka hore dab ku qabatay oo gubtay markaa dabadeed inta guri ku xidhay dab ku qabatay markaa dabadeed hadii la ka dhigo markii dambe caruurta inta isku xidhay labada gaar isku xidhay ayay dabadeed markii dambe ka tagtay hooyada ma xariisanaysa markaa soo iyada hooyada anagu mirqaban ku ogeyn hadii la ka dhigo waxa diwaali kuma aanan ogeyn adigu maxaa u tahay caruurta waxaan u hayaa dilaa ka dhigo awoobaan wax in kan adeero wax lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inta halka waxa ka dhacday arrin mucjisa ayna hore arag waxa weeyaan 4 caruur ayaa guri lagu xidhay sida la sheegay hooyadood baa ku xidhay marka sidaas waxa weeyaan imika 3 baa dhintay kii kalena haba naftu kulama jirto waana arrin naxdinteeda leh caruurtii gubatay la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Burco ayaa waxa ka warbixiyay agaasime ku xigeenka isbitaalka guud ee magaalada Burco Baasha Maxamed Cabdilaahi magacay waa Baasha Maxamed Cabdilaahi waxa la soo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Burco caruur gubatay marka 4 caruur bay ahaayeen oo walaalo ah laba nolol nagu soo gaaray labadaas waxa laba hablood taweyne waxay u gubneed dab fara badan oo marka 90 degree marka loo qaybiyo roll of 9 dhamaana 30 degree gubatay taasi waxay intii la tacaalayay ay geeriyootay kii afraad wuxuu yaala isbitaalka iyadoo way ladan tahay labada kalena waxay ku jiraan talaagada meedka oo meednimay nagu soo gaareen markii horeba marka geerida naxdinta la ayaa marka maanta soo gaadhay 3 baa marka dhintay laba hablood iyo wiil inana waxa weeye waa dhaawac sidoo kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadaniga gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Salebaan Doob ayaa taasi tiraanyada u diray eheladii qaraabadii iyo qoyska ay ka baxeen caruurtaasi gubatay waxaan hortaaganahay isbitaalka weyn Burco runtii geerin naxdin laba ka dhacday 3 caruur ah oo walaal ah ayaa meydkoodii talaagada ku jira mid afraadna dhaawaciisa wuxuu yaala isbitaalka lagu la tacaalaya runtii way dadaaleen qolada isbitaalku waxaan tacsiyo direynaa dhammaan qaraabadii iyo qoyskii iyo eheliyadii oo dhan waxaan u direynaa tacsiye dhammaan dadka reer Soomaaliland ee ubaxaas ka baxayna tacsiyo baynu u direynaa waxaanu leenahay dhammaantiin mas'uuliyad iimaan Allah inaga siiyo